munaasabad lagu maamuusay laguna dabaaldegay sanad guuradii labaad ee aasaaska ururka dalkaab oo urur isagu inta badan ka shaqeeya kor u qaadista tayada waxbarashada bilaashka ah la dagaalanka xaalufka iyo caafimaadka ayaa lagu qabtay xarunta koobaad ee magaalada Ceerigaabo ururku ku leeyahay xafladan lagu maamuusay sanad guuradii labaad ee aasaaska ururka ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka waalidiin ururada dhalinyarada ururada haweenka maamulka dalkaab iyo marti sharaf kale oo badan waxaana ugu horeyntii ka warbixiyay waxqabadka ururka iyo marxaladuhu soo maray gudoomiye ku xigeenka ururka dalkaab Hodan Cabdiraxmaan sida in badan ka waraysan laga bilaabo maalintii ururka la aasaasay waxqabadkiisii uu qabtay haddaan kormaro ururku fresh meel dadku ay ku bartaan dadka waxbaranayaan waxaweyaan dadka waxbarashada ka waaweynaaday hooyooyinka iyo caruurta iyo dadka danyarta inuu ku sameeyay wacyigelin ballaaran 10 tuulo oo hoos yimaada gobolka sare dadka laga wacyigelinayay xagga waxbarashada inay dadku wax bartaan wax kale oo dadka ka wacyigelinayay waxay ahayd jarista dhirta waxaan sameynay dhisitaanka goobo waxbarasho ay ugu horeyso meesha la yiraahdo masalan gaar ahaan goobta lagu magacaabo Gurifaras wuxuu ka wadaa ururka dalkaab iskuul loogu talagalay caruur yaryar oo ku dhiganaysay meel teendha ah meel aan biyo lahayn oo ka mid ah isla goobtaas wuxuu kala gaarsiiyay taangiyo ay biyo ku shubtaan dadkuna halka kuma ee kama waa kii horeeyay kii ugu dambeeyay xarun ku socon karna ama ku shaqeyn karna in intana gacmaha haysata waxaan dhibaatada kaga saari karnaa ummadeena intana maanta wada shaqeynaysa anagu waxaan u baahanahay cid kasta oo la taageeraysa nagu taageeraysa fikir ahaan haba iska badaa dhaqaale iyo wax lagu soo diray focus la taag waxay baahan tahay dhaqaale laakiin anagu xitaa fikriyan in la taageeraan u baahanahay meel kasta oo ururkan uu gaari doona hadda laamo badan buu ku leeyahay daafaha adduunka gobolada magaalada oo dhan marka waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo nala shaqeysay dhinaca kale waxa iyana ka warbixiyay waxbarashada bilaashka ah ee ururkani uu siiyay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga dalkaab anigu waan la socday ilaa awal oo aakhir haween ardayda wax ka barata oo ka faa'iideysatay waa ka mid ahay maadooyinka aan wax ka barano oo aan ka faa'iideynay waxa ka mid ah sida carabiga sayniska iyo ingiriisiga Soomaaliya wixii la mid oo kale anigoo ku hadlaya afar ardayda waxay codsanaysaa baqdheer iyo baqdheer inuu soo jeedinaysa cidii iskuulka dalkaab garanaysa in loo dhiso guri sababtoo ah macallimiintu iyo ardaydu way ku dhimantay maalin walba inay guri ka baxaan oo guri kale u wareegaan hadda ku jirtaa macallimiintu inay guri aan ahayn oo ka sii weyn ay raadiyaan aad iyo aad bay noogu dhimantay waxaan salaamayaa ururka dalkaab tan iyo meel kasta joogo waan salaamayaa waxaan leeyahay waan idinku faanaa waan idinku faani doonaa haddii alla idinku insha allah أنا ضميرة إنترنت وإسكت سؤال شيء وفكرت الشيء اللي مرغل يمال كذا يبقى شيء وعندنا أشخاص كدونين وتذكر يذكر مش كدونين السيري هتهريبني رواية سبب ويمارين ويمارين نبى يصير هذا بسكوك واحد صابرته نبى يصير هذا كتر على ومصوري هكذا لكن يوم هذا كنا كوبين ترى كنا كوبين ما التهريبنا وعبر قد إفراد وإحتر الشرودي لنا التهريب waxawayaan waxay garteen inay dalkooda dib u dhacay oo horumaraan hayso oo dhibaatada badan ka taagan tahay inay wax u qabtaan hooyooyinkooda iyo walaaladooda iyo ogaan jiilkooda inay soo kacaya inay soo dhisaan marka waxaan sheegayaa hooyooyinka aabayaasha iyo halka waxa ku abisay meel kastay joogaan inay isbarbar taagaan iskuulkooda oo ay u kacaan fadhiga laga qaco sababtoo ah farqo furma noqdo dhalinyarada kaliya horta way qabatay wax ilaahay tahadi wax fiican bay qabatay meel fiican bay noqonaysaa soo gaarsiisay laakiin waa in la isbarbar taago oo loo dhiso iyaga ku niyadda iyo habeenkas sidoo kale waxa iyana amaan iyo dhiirigelin dhalinyaradan iska wuxuu qabso ku shaqeynaysa ku guubaabiyay shacabka Ceerigaabo iyo deegaanada uu ka soo jeedo qaar ka mid ah waayeelka oo goobtaas ka hadlay ururka dalkaab buu mahadsan yahay waxqabadkiisana loo arkay waxa ay ku shaqeeyaan oo dhan waa voluntary haddii aan tuulooyinka anigu soo arkayna mise meel walba waxa ka jirta calaamad dalkaaba qoryaha
aad iyo aad loogu dadaalayo ee gurigoodii loogu geeyey waxbarashada sida gurfadas oo kale dee inay iyagu awr bixiyaan awr waa inay arigii u raacaya ama maqashii u raacaya buu ilmihii wax u baranaya waayo gurigiisii baa loogu geeyey kaa waxaa ku waajiba inuu awr bixiyaa waxaan ku dhiirigelinayaa wax waliba waxay ku fiican yihiin waxqabashada iyo wadajir baynu u guntanahay waa idin garab taaganahay dalkaab allah kor ha u qaado dalkaab allah kor ha u qaado waa wax lagu farxo dalkaab waxyaalaha u sameeyey muuqaal ahaan waxaad moodaa inay tahay role model ee ugu talagaleen bulshada aan aqoon ee gobolka Sanaag si loo sameeyo urur bulsho oo bulshada u shaqeeya weliba dhinaca waxbarashada ka shaqeeya waxaan leeyahay markaa habariyo aad baan ugu faraxsanahay halkaa kasii wada waxaan ugu hambaliyaynayaa dalkaab iyo saaxiibadooda dadka had iyo jeer gacanta siiyaba sida wanaagsan ay u soo kacayaan sanada gudahood iyagoo qabtay howlo aan lagu qaban 3 sano iyo 4 sano toona wax soo saarkoodii dadka siinaya waxbarashada qiimaha badan ee muddada soo jiitamaysay wasaaradda tacliinta iyo waxbarashada qaybta dadban NFE-ga hala shaqeysayaan dowladda hoose shaqooyin badan ay qabato inay qabtaan baan la soconaa jidadkan ay ayaamo dhaweyto wax ka qabanayeen shaqooyinkaana gacanta ku siisa dowladda hoose dadkii miyada iyo dadkii deegaanada kale fogfog bay la shaqaynayeen intaaba gacan la siiya ayaan leenahay dhammaan howlaha ay qabatoba waan dhiirigelinaynaa xadadii bilaaba awal waxa ururkani xafladda maanta u agaasimay inay ahaato oo noqoto sanadguuradii labaad ee ururka dalkaab urweynaha dalkaab sidaynu ka warqabno waxaanu joognay oo shaahidu ahayd oo markhaanso ahayd oo daawanayay oo lilawadiinaya sanadguuradii koowaad ee ururka inay ka dhacday isla halkan xafiiskan islamarkaana lagu soo bandhigayo waxqabadkii ururka yoolka oo hiigsanayo iyo waxyaalaha uu doonayo waxaan markaasi ka ahayd in ururka dalkaab sanadkii hore uu soo qabtay sinooyin iyo waxqabadooyin aad iyo aad u fara badan islamarkaana uu taagan yahay weli inuu dardargeliyo hawshii uu hayay una magacaabay inuu isagu u shaqeynayo volunteer ahaan ama mutawaacilnimo isagoo cidna wax ka doonayo markii uu talaasasay ururka waxa uu ku shaqeynaya ku socdaa awareness and education marka awareness markii la sameeyay research la sameeyay waxa soo baxday dhaqadan inay waxbarashadu aad u liidato ama hadday tahay kuwa grasa age-koodii ay dhaaftay xilliga waxbarashada marka sidaa laajigeed waxaa noo suurta gashay inaanu iskuul u samayno dadka waxbarashadii dhaafay xilliga waxbarashada ama dadka aan jirin baahiyi waxbarasho iskuulkana asaaskiisi koowaad waxaa laga dhisay xafiiskana inta taaganahay xaalada kala duwan kusoo maray waxaan garanayaa ardaydu halkan markuu isguurtiskariyey ay 3 sababood halkan ugu dhigsanayeen 3 sababood ay 3 macallin bar intay wada galaan marmar qaarkood ay suurtagelin in 3 macallin ay hal mar u wada sharaxaan ardaygii waxaa iyana kelmado kooban oo dardaaran iyo mahadnaq isugu jira munaasabadan ka yiri qaar ka mid ah ururada haweenka waan u faraxsanahay ururka dalkaab way maalinta lagu aasaasay oo joogay maanta waan ogahay meesha uu marayo ururkaas waa urur shaqeeyay wax badan soo qabtay waan in hambalyeena ahaada kuwa iskaashada ee marba gacmaha haysta ee marba hore u sii wada jiritaanka dalkaab ayaan leeyahay dalkaab ururka dawladnii madaxay dalkaab waaduu qatay magacuka ma tago adaaja insaara jirakiyada furfura adaadayahiyay waxbarashada la daalikay adaysanadkuhulalaadi sidaa ku tahay aanuna ku salaanay idinkuna sidaa kuwa ugu dambeyntiina maamulka ururka dalkaab ayaa shahaadooyin sharaf guddoonsiiyey shakhsiyaad ka mid ah dadka ugu firfircoon waxqabadka bulshada sida dayactirka wadooyinka Ceerigaabo.